wanaagsan saaxiibada qaaliga ah soo dhawaada maanta iyo barnaamijkeena maanta waxaa marti nooga ah gabar kulli oo wada ka siisaan waa darawalada soo dhawow marka hore waa duwahay si wanaagsan baan u duwahay marka hore horta intaan barnaamijkeena guda gelin su'aalaheena darawalada waa tumaad saxda ah waxaa weeye Khadiija Cabdi Maxamed sax cadeer darawalada waxaan kugu baranay social media siba TikTok adigoo mataqaanay baawur wada adigoo safar ah horta bulshada tooska noo daawanaysa darawalada maxaa ku dhaliyay inay darawal noqoto maxaa kugu dhaliyay waxaa igu dhaliyay inaan noqdo darawal waxaa igu dhaliyay si aanan bani aadan aanan macna ugu baahanin si aanan wala waalidkaada markuu kusoo kariyay kusoo barbaaray inaan hadan dib ugu laabato maaha sidaas aawadeedii inaan ka maarmo qof bani aadan ah inaan u baahdo rabbiga raxmaanka mooyaane inaan bani aadan u baahanin ayaa macnaha igu dhaliyay inaan noqdo darawal okay darawalada kulley waa gabar maxaad aadaa safar dheer marka adigoo safarkaas aadaya ka waran haddii uu baabuurka kaa banjaro ama lug ka halawdo ma micnaha wax karishbooy amaad wadataa kula hagaajinaya mise adiga hagaagsada horta aniga karishbooy macni wax loo baahan maama gaarigayga aniga ayaa hagaajisto sida ugu badanna khayr Allah siiyo waxa ay hagaajiyo rakaabkayga badana ayaa waxaan dhahaa xagga fuul iyo soo deji lugta saanyeel waa u tilmaamaa inta ugu badan waa qabtaa inta kalena waa u tilmaamaa xoog baan ayaga qabto wixii oo si caadi maskaxiyan ana u tilmaamo hadda rakaabkayga yaab ii joogo maasha Allah marka adiga gabar ah falcelin noocee ayaa kaaga imaada bulshada macnaha gabar baabuurkeed ma raacayna iyo waxyaabo la mid ah bulshada xaggeed ma kaaga imaada marka qaar haa way iga imaadaa si fiican laakiin hadda ma aha waxay ahaan jirtay markii hore ku aan bilaabi jiray waxaa la dhihi jiray naag sidee iskugu aamini karnaa naag sideen gaarigeeda aan u raaci karnaa naag macnaha ma qaadi karto ishagoo mas-uuliyad ma qaadi karto ay dhihi jireen laakiin ugu dambeyn heer waxaa marayaa inaan gaarigeyga oo taagan gaari kale aan raacin oo keyga mooyaane sax kulley darawalada waxaan u malaynaa waa hooyo marka si iskugu keentaa shaqada hooyanimada iyo adigoo darawal oo habeenka dhaxaya aniga hooyo waan hay laakiin hadda keligey waaye subxaana single mother laakiin waa hadda keligey baa nool marka waa caadi macnaha inaa habeen dhaxdo oo mataqaanaa safarkaasi iyo dhulkaas hada dhaxda hadde waayo hadda wax oo macna mashquulinayo male wax iga dambeeya male ani keligey xaafad ku nool single baan ahay ilmo waan dhalay laakiin ilmaha waa liga qaatay saas aawadeed ayaanu macnihii isha waxaan isdhahay macna stress qaadi leed macnaha iska shaqayso saas darteed habeenkii aan macnaha aan socdo iyo maalinkii aan shaqaynayo mashquulkaas badan waa macnaha iyo waa iska caadi ii tahay farxad sax safarkaaga kugu dheer xagee aaday markii kugu horreysay wallahi safarkayga iigu dheer waxaan aaday goday baa iigu dheer marka hadda laakiin gobolka Liibaan dhexdiisa ka shaqeysaa gobolka Liibaan ma ka shaqeeyaa xagga iyo mar walba waxaan u badanahay xagga iyo baashiba u badanahay deeka u badanahay deeka caqabadii kugu darneed inta aad baabuurkan waday aad la kulantay noo sheekayn kartaa horta caqabad weyn ma jirto laakiin caqabad walba ay macna soo wajahdana waa iskaga samraa laakiin caqabada oo macnaha oo aan xasuusto ayaa waxay tahay in oo macnaha waxbaa macnaha iga halaabay maalin baan anoo gaariga wada safar ku jirno oo waxay ahayd xilli oo saq dhaxa ah gaariga iga halaabay markaas gaarina wuu halaabaa nin iyo naag macnaha isku mid ay u tahay markaasaa kuwii rakaabkayga waxay leeyihiin maxaa dhahay maxaana soo raaciyay gaari naageed waan ogaa ma ogtahay gaari naageed markaa soo raacaya inuu saa noqonayo waan ogaa caqabadaas ay ahayd marka waa maxay fariintaada ugu dambeysa dadka gabdhaha fariintaada ugu dambeysa ee gabdhaha u diraysa isleh baabuur ma wadi karna anaga hawshan inaan loogu tirgala ma qaban karna fariintaada ugu dambeysa gabdhaha u diri horta fariinta aan u diraayo waxay tahay horta waa saxay gabar waxay ku fiican tahay inay joogto macna gurigeeda oo mustaqbalkeeda hadduu u fiicnaado ay toosto laakiin aniga wax igu qasbay waxaa weeye mustaqbalka ayaan fahmi waayeyba nin baan fahmi waayeyba markaa waxaan isdhahay nin dham hadda iska dayso oo gaari iska wado ood mashquulsanaato mar dhiig ka aado mar fiilto aado mar goday aado goormee lagu soo xasuusanayaa hore usii socoto mar hawaasi iska aado goorme horta nin iyo mashquulkiisa goorme xasuusan doontaa laakiin waxaan fariin u dirayaa gabadh allaala gabadha mustaqbalkeed u fiican ha iska joogto gurigeeda tii laakiin
ay fahmi weydo xaaladda oo mustaqbalkeeda ka yara xumaado ninkii iyo wixii iyo ay fahmi weydo dee ha iska noqoto darawal waayo wax ku mashquulinaya ma laha wax ku macnaha isha oo macnaha ku biisgareynaya ma laha taleefankaada maba la helaayo lama heli karaa tayo saas darteed marka waa shaqaysan kartaa laakiin waa shaqo adag balse way ka bixi kartaa tii u soo jeesato aad iyo aad waa mahadsantahay adaa mudan walaa